السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muuqaalkeenan kooban waxa aynu kaga hadli doonaa mucjisooyinkii dhacay dhalashadii nabigeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam. Waxaa la sheegay habeenkii dhalashadiisa in asnaan badan wajiga uga dhaceen meelahoodii, jinkuna uu meelo badan ka qayliyay. Al-Suhayli wuxuu ku sheegay tafsiirka Baqa bin Mukhlad inuu Ibliisku qayliyay 4 jeer markii la nacdalay, markuu soo degay la soo tuuray, markii uu rasuulku sallallahu alayhi wasallam dhashay, iyo markii ay faatixadu soo degtay. Maxamed ibn Isxaaq wuxuu yidhi Hishaam bin Urwa wuxuu ka sheegay aabihii in Caaisha ay tidhi waxaa jiray Yahuudi degan Maka oo ka ganacsan jiray. Markay ahayd habeenkii uu dhashay rasuulku sallallahu alayhi wasallam ayuu ka dhex yidhi majlis Quraysh fadhiday. Qurayshay ma idiin dhashay ilmo caawa? Waxay yidhaahdeen ma ogin. Wuxuu yidhi Allahu Akbar, haddaan idinku khaldamo waxba male, u fiirsada oo xafida waxaan idinku odhanayo. Waxaa dhashay habeenkan caawa ah nabigii ummadan u dambaysay, labadiisa garab dhexdoodana waxaa ku taal calaamad timo dhowr ah leh, aad moodaysana saynta faraska, mana jaqayo laba habeen naaska, waayo cirfiid jin ah ayaa afka ka geliyay fartiisa oo u diiday nuujinta. Qoladii ayaa ka dareertay masjidkoodii iyaga oo la yaaban hadalkii iyo sheekadiisii. Markay gaadheen guryahoodii ayuu mid waliba u sheegay reerkiisa. Waxay yidhaahdeen waxaa wiil u dhashay Cabdimudallib oo uu u bixiyey Muxamed. Waxaa isu yimid dadkii oo yidhi ma maqasheen warkii Yahuudiga, mase maydin soo gaadhay dhalashada wiilkani? Dabadeed waxay u tageen Yahuudigii una sheegeen warkii. Wuxuu yidhi waar iraaca aan soo eegeen. Way soo raaceen ilaa ay u soo geliyeen Aamina oo ay ku yidhaahdeen noo soo saar wiilkaaga. Way u soo saartay, kadibna way ka qaadeen dhabarkiisii marada. Wuxuu arkay shaambadii, markaasuu ku dul dhacay Yahuudigii isagoo miyirla. Markii uu soo miyirsaday ayay ku yidhaahdeen waar maxaa ku helay? Wuxuu yidhi Ilaahay baan ku dhaartay way ka tagtay nebinimadii reer bani Israa'iil. Ma ku faraxdeen Qurayshay? Xasan bin Saabit waxaa laga soo wariyay inuu yidhi anigu waxaan ahaa wiil 7 ama 8 jira oo garanaya waxaan arkay iyo waxaan maqlayba. Yahuudii Madiina joogtay ayaa ku qayliyay subax hore oo lahaa waar Yahuudey. Markaasi ayay ku soo urureen anoo maqlaya. Waxay yidhaahdeen maxaa ku helay? Wuxuu yidhi waxaa soo baxay xidigii Axmed, kii uu ku dhalanayay habeenkan. Sayd bin Saabit waxaa laga maqlay isagoo leh culimadii Yahuudda reer bani Qurayda iyo bani Naadir waxay sheegi jireen nabiga tilmaamihiisa sallallahu alayhi wasallam. Markii uu soo baxay xidigii casaa ayay sheegeen inuu nebi yahay iyo in aanu nebi ka dambaynin, magaciisuna yahay Axmed, una soo haajiri doono Madiina. Markiisa rasuulku sallallahu alayhi wasallam yimid Madiina way inkireen way xaasideen waanay ka gaaloobeen. Ibnu Abi Xaatim tafsiirkiisa wuxuu ka wariyay Cikrima in uu yidhi markii uu nabigu sallallahu alayhi wasallam dhashay dhulka ayaa nuur iftiimay. Ibliis ayaa yidhi waxaa dhashay caawa wiil arrinkeena uu ku xumaanayo. Markaasuu ku yidhi ciidamadiisii haddaad soo kharibtaan caqligiisa. Markay u soo dhowaadeen nebigii ayuu Ilaahay u soo diray Jibriil oo harraati ku dhuftay kuna dhacay cadan. Subayr bin Bakar iyo Ibnu Casaakir waxay ka wariyeen Macruuf bin Kharbuud in uu yidhi Ibliisku wuxuu ka gudbi jiray 7 samo. Markii uu Nebi Ciise dhashay waxaa laga xidhay 3 samo, waxaanu gaari jiray ilaa 4. Markii uu dhashay rasuulkuna sallallahu alayhi wasallam waa laga xidhay 7diiba. Wuxuu yidhi wuxuu dhashay maalin Isniin ah markuu fajarku dilaacay. Waxaa kaloo la wariyay inay astaamo nabiga sallallahu alayhi wasallam gogoldhig u ah ay dhaceen markuu dhashay. Waxaana ka mid ahaa 14 fooq oo ka mid ahaa fooqyadii boqortooyadii Faariska oo dumay. Waxaana bakhtiyay dabkii uu majuusigu caabudayay. Waxaana dumay kaniisado ku yaal hareeraha harada Saawa kadib markay gudhay. sidaa waxaa wariyay Bayhaqi. Aamina waxay rasuulka sallallahu alayhi wasallam nuujisay 3 cisho. 7na waa la yiraahdaa Suwabiya al-Aslamiya, jaariyadii Abu Lahab uu xoreeyay markii ay ugu bushaaraysay
dhalashadii rasuulka sallallahu calayhi wasallam ayaa iyana nuujisay ayaamo ka hor imaatinkii Xaliima Sacdiya. markii uu dhintay Abulahab ayaa reerkiisii qaar ku arkeen manaam isagoo ku sugan sharka xunnaar. markaasaa lagu yidhi maxaad la kulantay? Abulahab ayaa yidhi lama kulmin dabadiin wax khayr sheegay. ninka Abulahab arkay uu ahaa isaga walaalkii Cabbaas, taasoo ahayd sanad kadib dhimashadii Abulahab iyo dagaalkii Badar dabadii. waxaa lagu daray inuu Abulahab ku yidhi Cabbaas waxaa la iga khafiifiyaa maalinta Isniinta oo kale, waayo waa markay Suwaybiya ugu bushaaraysay dhalashadii wiilka uu adeerka u ahaa Muxamed bin Cabdillaahi sallallahu calayhi wasallam ee uu u xoreeyey saacadiiba looguna abaalguday tan. ibnu Cabbaas wuxuu ka wariyay aabihii Cabbaas inuu yidhi rasuulku sallallahu calayhi wasallam waxa uu dhashay isagoo xalaalaysan oo xudun go'an. Cabdimudallib ayaa la yaabay taasi oo u yimid, wuxuuna yidhi wuxuu noqon doonaa wiilkayganu mid shacni weyn yeesha. waanu lahaa hadalkaana waxaa u rumeeyey una marag furay rasuulkii sallallahu calayhi wasallam markuu yidhi waxaa ka mid ah karaamadayda alla igu galladay, waxaan dhashay anoo gudan, qofna ma arag cawradayda.